والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، xeerkan wuxuu xusuusiyay xeerkii qoyska ee Maxamed Siyaad Barre soo saaray ee 10 wadaad lagu dilay ayuu xusuusiyay. wuu ka xun yahay waa uu ka qurbu yahay xeerkii qoyska ee 10 wadaad lagu dilay 1974. aad iyo aad buu uga xun yahay, waayo kaasi wuxuu lahaa oo keliya dhaxalka ilanka iyo ilanta isku in baa la siinaya. intaasoo keliya ayaa kaa ku qorayd oo shuuciyaddii iyo hantiwadaagii iyo sistamkii uu waddanka ku socda berigaa uu qabay. kani dhaqankii reer qoomuluud buu fasaxayaa. waxaan iminka gaaladu baarlamaanada ay ka ansixiyeen ee qoyska nin qaba naag qabta siladii buu fasaxayaa. aayadihii qur-aanka ee kitaabka ilaahay ku qoraabuu ka hor imanaya. marka ay noqoto aayadaha qur-aanka ah iyo kitaabka ilaahay markay noqotona ninkii taa taageeraa isagay u taalla. laba malag baa garbaa ka saaran, inkastoo mas-uula, inkastoo madaxa oo ka qoraya oo alla inoogu sheegay kitaabkiisa oo maalinta qiyaamaha odhanaya hoogayga wax yarba may dhaafin wixii aan sameeyey. maalinta qiyaamaha kitaabka alla inoogu horkeenaya. berii baanu ka nahay nagu berii baanu ka nahay. xeer dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaa daro waxaa ku qoran halka bishii 9 Sebtembar oo bishan ku jiro kowdeedii baa la faafiyey. talo maxaa helay dowladayadii? talo maxaa madaxweynahayagii helay? talo maxaa sharciyo qaadanayadii helay? waa diinteeni meeday, islaamnimadeeni meeday, warwadaadadii maye. marka laga baaran confessional ay imanaya masaajidada ka qudbadayn jiray war maye oran jiray war diintii oo dhan baa laga baxay maye. maxay uga hadli waaye? maxaa musiiyey kuwii baaran ka qaylin jiray ee masaajidada oo dhan jimcaha ka hadli jiray maye. maxay uga hadli waaye? xeerkan nin kasta oo ku dhaqma, nin kastoo cid ku dhaqa waa gaal. ummad yahay laydu kuma dhaqi karo, waa gaalnimo. ninka gaalnimo soo waaridaana isagay u taala. maalintii 10 wadaad la dilay ayuu Maxamed Siyaad Barre oo xoog oo dowlad xoog weyna ayaa magaaladii xawar baa ruxantay. xawar baa joogaano magaalada baa ruxantay. laba miig 21 oo miyo diyaaro cusub oo guux weyn oo markaa loo soo dhaweeyo magaalada sabab dul mariyo ee saa ku dul maraysa aad beerka dhigayso ayuu soo kiciyay suu dadka ugu khalkhalgeliyo oo loo wada gabado. laba jeer markay sidaa noo dhaafeen ayaa bal wixiisu keenay aduu garo xawar xaafadii ugu bableyshanka badnayd ay labadii miig afka istare xaafadii bay baabiiyeen. maxay baan hawaan u soo taagna maxamed Siyaad Barre wuxuu yidhi awoodiyo masali waxyaro muuji. waa nimanka mashaariicda gaaladu wadda miynaan iska eegi karayn. maxaa caqliga in laga qaaday? ma in yaroo lacagaynu siisanaa diinteenni iyo iimaankeenni? war khasnada ilaahay baa ka waaweyn. hay-adahan dowladda ee waxaan soo malmaluuqaya xaaraanta ana war ilaahay ka baqaanu leen, ilaahay ka baqa. madaxweynahan waxaa leeyahay hoosu eegde hoostaadii waxaa ka socdaane. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.